ninka ma u bannaan tahay inuu xaaskiisa naasaheeda nuugo ama carabkiisa xubinka taranka xaaskiisa uu geliyo sidoo kale haweeneyda inay xubinka taranka ee zawjkeeda ay mudmuudsato arrimahaas sheekhan loo ramo jazakumullahu khayran. waxaa laga yaabaa dad badan oo idinka mid ah su-aasha inaad ka yaqyaqsateen inaad ka yaqyaqsanaysaan oo la yaabantihiin baa laga yaabaa bal qaar idinka mid ah waxaa laga yaabaa inaad leedihiin war waxaa masaajidka loo keenayaa waxaas maxaa sheekha loo weydiin laakiin in badan oo mujtamaceenna ka mid ah baa masaa-ishan sameeya oo ay haysataa khaasatan dadka xoogaa iskuullada dhigtay ee yaro ilbaxay ilbaxnimada iyo tiknolojiyada iyo waxaan adduunyadan la dhex galay tiknolojiyadu ma keenin laakiin dhexgalkan adduunyada la dhex galay baa waxaa soo kordhay dhaqamo fara badan oo laga keenay waddamo kale su-aalayiin marka war wixii waa la arkay oo dadkii baa lagu arkay telefishinkii baa laga arkay oo dad baa lagu arkay oo gaaladii baa lagu arkay oo joornaaladii baa qoraya oo dadkii mutaqafiinta wax bartay baa akhrinaya war sheekh maxaa diinta ogoshay maxaysan ogolayn haddii la yidhi soo xaq ila cad ay u baahan maaha ya wax walba shareecadu waa inay qeexdo waay waa xaaraan waa xalaal taa haddaan kaga gudbo xoogaa dhibsiga aad su-aasha dhibsateen inta haddaan kaga gudbo jawaabteedu wax waaye xubinka taranka ama ka dumarka ha ahaado ama ka ragga ha ahaado afka looma dhoweyn karo leesh لأن وحوي ومحل القدر ماشي ومال وسخ ماشي ومال وسخ وماشي نجاسات كسو بحيين ومال انت بدن تشير مثله مال نوعا سو كلتا افكا او مدخل كي شركه انتي سكليه علوشي iyo wax uga galayeen in la aado maya wax kale iska dhaafay xubinku markuu ka jahayo waxa la yiri gacanta midigta ku qabanina afla aad iska dhaafay gacanta midigta ku qaban mas'aladaasi marka mas'ala sharcan banaan ma aha waana nooc adab darro iyo akhlaaq xumo ah waa nooc mucaasharo khaldan oo shariicada khilaafsan ah looguma talagelin Allah tabaaraka wa ta'ala xubnaha ayagu isugu talagalay afku xubnihii meesha loogu talagalay ma aha qodobka markaan inta kaga gudbo mas'alada xigta ee raacsani waxay ahayd ninka xaaskiisa naaskeeda taa iyada ah lil istimtaac iyo muxuu ahaayay dib male taabashada iyo afgelinta iyo muxuu ahaayay salsalaaxida waa nooc istimtaaca kamida wax dhibana male culimadu waxay ka doodaan kutubta fiqiga qortay culimadu waxay ka doodaan hadduu caana ka yimaadaan oo uu caanihii nuugo liqo ma ka furantay mise kama furmay ma ka furmaysaa mise kama furmayso على الراجح كما فرميس لأن عانوه وحي ساميان ilmuhu intuu yar yahay oo naaska nuugayo oo cuntabaranin bacaanaha uu nuugay ay saameeyaan laakiin nin weyn oo gar leh caanuhu ma saameeyaan xurmana kama dhalato allahumma fi hala khaassa oo xaaladii muxuu ahaaye Salim mawla Hudayfa fi sahih al-Bukhari hadithki xaalad noocaas oo kale xaaja ay timaado oo Suhayla nabigu ardicihi tahrumi alayhi xaalad khaas way taas أما أصل أهان مسألة واساسو عانوهنا wax saameeyna ku yeelan maayaan kara furi maayaan dalaaq maxanu jeeda xarigiina jabin maayaan saas daraadeed waa istimtaac iska banaan hadii si ruuxu uu u baahdo khuruujan min al-khilaaf suu uga fogaado khilaafkaba caanaha inuu san liqin ayaa haboon maadaama khilaaf meesha ku jiro caanaha liqitaankooda inuu ka fogaado ama inta kale sharcan wax diidahay ma jiro waa mas'ala istimtaaca kamida shariicadu ay ogolaatay oo billahi tawfiiq